hogaamiyaasha madasha qaranka ayaa shalay isku raacay in fadhiga baarlamaanka tobnaad ee cusub la qabto 15 bishan Disembar iyadoo doorashada madaxweynahana la qabanayo 18 bishan Disembar. Talaabadan waxay imanaysaa iyadoo aan weli la dhammaystirin doorashada xubnaha aqalada hoose iyo sare oo ka socotay gobolada dalka qaarkood. waxaa kaloo iyaguna weli taagan eeda culus oo la xiriira wax istabamarin iyo musuqmaasuq dhacay intii doorashada lagu jiray. haddaba ma loo baahan yahay in wax la saxo ka hor inta aan madaxda qaranka la dooran mise waxaa habboon in horey loo socdo? dalku ma u baahan yahay hoggaan cusub mise hoggaanka xilligan ayaa u qalma in fursad kale la siiyo? waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya haatanna dib loo soo doortay, Professor Maxamed Cali Kalaay gudoomiyaha jaamacadda koonfurta Soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi. hadalkana waxaa ku horeynaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka hadlaya in doorashada baarlamaanku ay ku dhacday si cadaalad ah iyo in kale. Harun waad mahadsantahay VON waa idin salaamaya dadka saaxiibadii wada jira khadkana intaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay. doorasho marka Soomaalidu maskaxdeeda ay ku soo dhacdo dadna maraaxil bay maartay iyagu ay u eegaan tan iyo 60kii Soomaali maxaa doorasho soo martay qaabkay ahayd dad baa maartay 60meeyadii wixii dhacay way arag waa dad baa 69kii maartay doorashadii inqilaabka keentay wuxuu maartay uu ka hayaa fikir dad baa maartay wixii Djibouti iyo indagaati iyo sidii wax lagu soo xulay ayagana dareenkooda saameyn ku leh sidii wax loo qaybsaday waxay ahayd in wax lagu soo waday oo la nus la yiraahdo oo la rubuc la yiraahdo iyo qolo waa dhantiin la yiraahdo maanta waxay taagan tahay 50 ergay oo oday dhaqameedkii saxiixayaasha 135 hor kacayo wixii lagu heshiiyay ayaa hadda waxa lagu wadaa hawsha doorashadan loo bixiyay doorashada dadban. Maxamed Cumar Dalxa su'aasheedu waxay ahayd doorashadani cadaalad miyaa sida ilaa hadda ku dhacday mise waa cadaalad darro? cadaalad marka ugu horeysa horta Ilaahay baa samayn kara. bani aadan inta anaga aan soo tilmaamay ee maraaxiisha qolo waliba way cabanaysay maalin walbana qolana waa maartay marshada markay u gasho iyadu waa sacabatumaysay qolana markay iyadu ay ku qalloocatana way dacwoonaysay way qaylinaysay maanta waxba kama duwana meel qola maartay iyada ka mashxaradayso ayaa qolana meel kale ku murugoonaysa. way aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid Khaliif. in muddo ah ayaad ka hadlaysay doorashadan iyo qaabkay u dhacaysay iyo wixii aad ka aragtay si kooban noola wadaag wixii kaaga baxay. waan mahadsantahay Harun iyo akhyaarta kale oo ku jirta leenka. doorashadan markii hore waxaa lagu ballamay qof iyo cod 2 sano markii ka hartay ama sanad iyo barbaaliyad lama awoodo mid la naashnaashay oo hufan oo enhanced legitimacy eragaas loo isticmaalay ama la hufay oo habaysan oo kontinent qof ay ka codeyso oo halkii oday laga kaxeeyo sida hadda Dalxa uu yiri taasaa la ballan qaaday. meeshii marka arrinta ku xamaatay waxay ahayd odayaal kuraasta sare ee dalka hawa uga jirtay oo madaxweynaha hadda carada jooga iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha South West saddexdaas nin oo kuraasta raba ama aqalka sare raba ama madaxweyne raba ama waxaas raba iyo rag la mid oo hadda xildhibaan noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo rag kale oo maaragtay maxaa la yiraahdaa korjoogta ahaayo South West iyo maxaa ama galmudug iyo andhaho Jubbaland iyo Puntland laakiin dad la kala socda rag 8 ah oo kuraasta raba madaxweyne raba qaarkood iskala rabaan ra'iisul wasaare qaarkood xildhibaan rabaan qaarkood senator rabaan baaliyada maamula oo maqoorada ayagii marka dheer ninkii maxaa la yiri u dhawaa lafta kala baxa ayagii waa ishabeeyeen saaxiibadoodna waa habaysteen haddana 207 aniga inta ii qoran xildhibaan baa soo baxday oo aqalka hoose ah haddii ka badnayn shalay iyo maantana la sii badin aqalka sarena 43 way ahaa maalin dhaweyd haddii Soomaaliland dadkii kasoo jeeday lagu dardaray aqal sare kasoo baxaan oo kasii badaan hawsha marka 180 waa gabagabo ragaas maamulahayay baana maaragtay raba inay kuraasta kasii waaweyn madaxweynimada helaan taasna waxay keentay inay gacmeeyaan oo lafahoodan uga muraadsadaan sidii kale ay uga muraadin lahaayeen uga muraadiyaan taasaana keentay dadna inay sida xildhibaanku sheegay ay qaylo iyo afad ku hayaan qaarna maartay ay faraxsan yihiin qaarna qawatan yihiin. way Cabdirashiid aad baad u mahadsantahay. Maxamed Cali Kalaay labada dhinac kuwa barooranaya iyo kuwa dabaaldegaya kuweeba ay tahay in la fiiriyo dareenkooda oo gar leh ma kuwa guuleystay dabaaldegaya mise kuwa xaq darrada sheeganaya ee laga guuleystay?
bismillahi raxmaan raxiim. horta Haruna waa mahadsan tahay. runtii aniga waxaan qabaa fikri ah hal xaaraana nibi xalaala ma dhasho maamaada dhahayso oo ah dadka horta go-aankan gaaray oo inta meel isku soo xiray oo madasha la baxay waa mas-uuliyiintii maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ah. ayagii baa naqshada jirtay, ayagaa doorashadan iska dhaadhiciyey in maamul goboleedyada ay mas-uul ka yihiin doorashada siday u dhacayso. liiska ayaga ay soo gudbinayaan, ayaga ay maamulayaan. marka meeshaasaaba horta wax ka soo qaldamayn baan leeyahay. ta labaad, doorashadan ma ahayn mid 4 bilood 5 bilood laga sii fekeray oo dadka la wacyigeliyey, seminaaro loo furay, dadka iyagoo dayaarada lagu keenay ama magaalada laga soo saaray ayaa inta galabta la sawiro 1 saac kadibna horay mataqaanaa meesha laga gelinayay. waxaad arkaysaa xataa qof laleeyahay wax ma qori yaqaan, waa la saacidayaa laleeyahay. qofkii meel baa lala gelayaa, qof guddigii doorashada ka mida ayaa dhahayo halkan saxiix, midkuu rabayda ma mid kalaa. siday wax u dhaceen adduunka dhan wuu arkaa. saasaa weli waa la inkirsan yahay. haddii la dhihi lahaa waxan waa nagu cusub yihiin, qaaradaadna waa jiraan, waxbay ahaadeen. laakiin nimankii mas-uuliyiinta ah maamul goboleedyada iyo madaxdan kale waxay raalli isaga ahaayeen dadkii 12 sano 20 sano la soo shaqaynayay inay dib ugu soo noqdaan. halka qof oo cusub oo soo galay naftirkiisa siduu ku soo galay ilaahay baa og. marka waxaan ku ekaysan lahaa in arrintaani sidii la rabay aysan u dhicin, dadka cawaadayana aan la xallin, arrintaasna ay cawaaqib xumo u keenayso doorashada dambe oo Soomaaliya laga qaban doono. way aad baad u mahadsantahay. maxamed cumar dalxa, intaan horta maxamed cumar dalxa soo gelin, guddiga doorashada waan la xiriirnay iyo guddiga khilaafaadka labadaba ilaa hadda nooma suuro gelin inay barnaamij ka qayb qaataan ama waraysina siiyaan. laakiin ma aysan beenin eedahan loo soo jeedinayo doorashada iyo wax istabamarinta. markay ka hadlaana waan soo gudbin doonaa. maxamed cumar dalxa, wadanka sida uu ku jiro iyo doorashada sida u dhacday markaad fiiriso, ma kula tahay in horey loo socdo oo sidaa hoggaan lagu doorto, mise waxay kula tahay in la isdejiyo oo la saxo wixii qaldamay? haarun, aniga waxaan qabaa in la isdejiyo oo la saxo wixii khaldan. meel xumaan taalo wanaagna yaallo waa jira, meel wanaag yaallo xumaani ka dhacdayna waa jirtaa. guddiga doorashooyinka daday ka baajiyeen oo ay yidhaahdeen ha lagu noqdo oo meel wax ka dhacay waa jiraan. haaruno, waxaan ogahay aniga dad aan iyaga intay wax dulmeen oo mu'aamarado iyo adduunyo waxay isku dayeen oo beelo islaameed oo xataa aan shaqo ku lahayn ee iyaga intay faraha la galeen oo haddana markay kusoo hungoobeen haddana dacwoonayo oo qaylinayo oo weedhii carabiga u lahaa maadalamani fabakadu ma ishtaka intuu aniga idulmiygu is ooyey haddana ayuu dacwad igu taagay. dad noocaas oo kalena way jiraan. dadkao dhan wixii wada qaylinaya maaha wax wada dulman. kuwa dulmika qaylisinaya jirta ee u bartay dad masaakiina inay ayaga intay la dul tagaan ama ayagoo lacagaas ama awood sheeganayo ama siyaabo kale ee maaragtay oo maaragtay suugaa salaaxid inay ku sameeyaan ee rabay dantoodii markay gaari waayeen media hor habeen taagan xataa aan laga garanaynin ummadaha ay leeyihiin dadkaasaan matalnaa oo aan anaga aan ahayn. laakiin iskuma jiraan dadku dad haddana oo iyaga wax dhibana ah oo wax gaaray oo dadka Soomaaliyeed u garaabi karaan. beel walbana way istaqaanaa. rumuhuna kama imaanayo kor keliya haddaanan hoos gacan ka haysanin. ninkii wuxuu yidhi masaari imaadan goysin haddaanan geedkayga ku daabnayn. dadka wax dooranayo, dadka wax soo xulayo waa Soomaali aanan hoggaan ahayn. cashe sheekha ma aha, cumar cabdirashiid ma aha, jawaari ma aha, madaxda maamul goboleedyada ma aha. dad Soomaaliyeed baa la yidhi idinka dad soo xula keena. ma aha meel keliya inaan dubaha la dhacno. Soomaaliduna cadaalada badi maanta umama bislaba. xoogii baa la bartay, nin walba dardar. ninkii miskiina in maartay ee madaxa looga istaago, ninkii ishiisa maartay ee dagan la arko in maartay la tuqantuqiyo. nin allaale sidii lagu heli karo oo kii kalan indihiisa laga baqayana waa laga leexanayo. waxaa leeyahay haddaad ninkaas iyo isagii beeshiisa aad faraha la gashaan waad eedaysaan. marka dhibaatada Soomaalida dhammaan kama wadaba marna, ama ha noqdo mid sare ama ha noqdo mid hoose. waayahay cabdirashiid khaliif, su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan meesha loo socdo waxa weeyaan hoggaanka waddanka sida aad maalin dhaweyd u dhigtay. dowladda hadda joogta iyo madaxweynaheeda waxay doonayaan inay soo laabtaan. dowladdu uma wada dhanna ee ra-iisul wasaaraha laftigiisa maalin dhaweyd Kismaayo markuu tegey wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay. dowladda haddana waxay doonaysaa in fursad la siiyo hawsheedii ay ku dhammaystirto. marka muxuu waddanku u baahan yahay? waa su-aal runtii meesha ku jirta. intaan la oran dee hebel baa macnaha qoladan joogtaa lasii daayay iyo kuwa cusbahanya intaan la oran
waxaa mudan in la isweydiiyo soomaalida horta maxay rabtaa. soomaalida maxay rabtaa ko dadka soomaaliyeed maxay rabi karaan inkastoo hadda afti balaaran aan laga qaadin. midda labaadna maxaysan rabin oo madaxda aysan rabin soo u ekaan karaan. shaqada taalla maxay tahay. hogaamiye iyo madaxweynenimo maxay kala yihiin. dadkan madaxweynenimo rabnaa bay leeyihiin. soomaaliya madaxweyne u baahan tahay mise hogaamiye u baahan tahay maxay kala duwan yihiin. ana marka waxaan is leeyahay soomaalidu maxaa la yidhahdaa shaqada madaxweynimada soomaaliya ama hogaamiyaha soomaaliya shaqa adag weeye. dadkii soo qaqabtay oo dhan ilaa cali mahdi laga soo bilaabo ilaa xasan sheekh lagu soo gaarno way la rafteen oo way ku dhibtoodeen. marka laakiin waxaan isleeyahay anigu indaan warka aanan ku dheeraan soomaaliya madaxweyne uma baahna hogaamiye u baahan tahay. hogaamiyaha waa inuu haystaa kalsoonida shacabka, waa inuu yahay qof aragti leh, waa inuu maxaa la yidhahdaa kalsoonida dadkaas u dhaqaajiyo ummadda meel u geeyo meelna uga dhaqaajiyo, waa inuu kalsoonida ummadda haystaa. soomaaliduna waxaan isleeyahay anigu intaan hadda dhageeyey ayaamahan qofkay ku arkaan qabyaalad iyo amaana daro iyo maxaa la yidhahda cadaalad daro iyo waxyaabahaas ay ku arkaan runtii way iska hor yimaadaan. marka qofka usoo banbaxaya waa in lagu fiiriyo horta qabyaalad sefiya in soomaalida o dhan qof isku xambaaran kara miya, cadaalad qof aaminsan ma yahay oo ummadan macnaha qof tuug ah miya mase qof waxba aan ka xadahayn ummadan oo warac ah oo xiisa dhowraaya macnaha qof aragti lama yahay wixii wax ka garanaya oo dad intaasba leh baa jiro oo cadaaladna yaqaan aamin ah waxna aan xabahayn umadiisana jecel laakiin hadda wixii aan farsamadii maamulka dawladda waxba ka garanay. aan kaa dhex galay cabdirashiid oo ma haynaa dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa. dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa haarunow baarlamaankaas 329 rag iyo dumar soomaaliyeeda lasoo xulay shaar iyo faralaa qaar lagu soo xulay iyo qaar soo xoogay iyo qaar loo xoogay iyo qaar xaqooda si fiican oo saxa xaqa ku helay. markii doorkaas meeshaas isu yimaadaan runtii aan waxaan isleeyahay macnaha si kastoo lagu keenay iyo si kastoo ay kusoo qaateen kuweenan hadda hadlayna iyo kuwaas soo doortay inaan kala fiican nahay oo anaguna akhyaar nahay oo xalaal nahay iyaguna ay habaaran yihiin ma aaminsani. soomaali waa iska soomaali. markay meesha yimaadaanna waxba kama khaldana xasan sheekh oo ay yaqaanaan oo 4 sano hor joogay baa dhahay igu celiya. cumar cabdishiid oo xasan ku lamaansanaa baa dhahay aniga ha ligu dayo. kuwo kaloo tiro badan oo shariif xasan oo dhahay meeshan meel kursi halkaasa ligu wareeriyay aniga intaan kasoo jeedina kursigaan ha liga wareejiyo darbigaan ha lila jibiyay baa taagan. kuwo kaloo tirada ka badan oo qurbaha kasoo yaacay iyo kuwo gudaha joogay waa joogaan. marka dadkaas xildhibaanada codka bixinaya waxba kama khaldan. hadda kahor sheekh shariif iyo cabdiweli baa yidhi maaragtay si hadda cumar iyo xasan u yihiin annaga hana ku celiyo waa la ceyriyey oo waxaa la yidhi qori iyo qiiqis waa lasla tuuraa. xasan sheekh oo aan la aqoon baa la keenay. hadda cumar iyo xasan sidii baa ku dhici doonta raggii ka horeeya ku dhacday mise waa la maxaa la ayagaa jaanas la siin doonaa raggaana waxoogaa qarar cabaar joogay hala siyaa la oran doonaa. dadkan kaloo tirada badan oo nin walba leeyahay aniga qaarna waa qooqan yihiin sidii rati qooqan bay kursiga u rabaan. qaarna waxaa dhici karta inay merit iyo qualification iyo haystaan kuwaasaa la fiirin doonaa. labadaas waxay ka go-daa dadkaas laisu keenay. markii liisku soo dhamaadana waa la qiyaasi karaa siday wax yeeli karaan waa la qiyaasi karaa. laakiin anigu dadkaas aada ugama kuusan oo waxaan isleeyahay soomaalida markay isku yimaadaan taladu kama xumaan doontaan isleeyahay. waaye professor maxamed cali kalaay maxay kula tahay wadanku hogaan miyuu u baahan yahay cusub mise wuxuu u baahan yahay hogaankii hore in fursad la siiyo? bismillahi anigu fikriyan waxaan qabaa in loo baahan yahay hogaan cusub sababtoo ah nimankan hadda ku tartamaya madaxweynenimada oo mas-uuliyiinta ah waxay qaban karaan horaa loo soo arkay. marka 4 sano oo soomaaliya wakti ka dhumay in haddana 4 sano oo kale waan tijaabinaynaa la yidhaahdo ma qabo. laakiin waxaan qabaa in sida walaalkay uu sheegay hadda cabdirashiid xildhibaanada lasoo xulay aqalka sare iyo aqalka hoose inay fekeraan oo aysan qofka aysan u fiirin qabiil iyo xoogaa lacag oo hal maalin la qaatay iyo inaysan u fiirin oo ay soomaaliya aayaheeda ka fekeraan 2020 sidii lagu heli lahaa soomaali midaysan oo cod xalaal ah qof iyo codkiisa gaarsiiyo in la helo. laakiin 7 qof oo madasha ah in midkood madaxweyne noqdo mid ra'iisul wasaare noqdo mid baarlamaan noqdo waa jugjug meeshaada joog waaye. waxaan haddii saas dhacdo waa 4 sano oo soomaaliya ay dibta laba u qaaday. anu marka waxaan raacsanahay isbedel oo aan ahayn mid dad ku heshiiyeen ama suuq madow ku soo galay laakiin loo fiiriyo yaa soo madayn kara yaa hogaamin kara in loo fiiriyo qalaan. waaye maxamed cumar dalxa
maamulka hadda talada haya adna baarlamaankeeda aad ku jirtay dowladda uu hogaanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud 6 tiir bay soo bandhigtay markii xukunka ay qabatay 2012 oo ay ka mid tahay inay wax ka qabato dhinaca amniga iyo xasiloonida dhinaca dhaqaalaha dhismaha nabadda iyo adeegyada iyo xiriirka beesha caalamka iyo midnimada wadanka qodobada kuwaas ayaa ka mid ahaa marka dowladdan markaad qiimayso 6daa qodob maxay ka qabatay maxaysan ka qaban baarlamaanku waxbay qabteen soomaalidu waxay tiraahdaa wax kastoo cusub ama wax kastoo dhaldhalaalada dahab ma aha nin kastoo cusub khabiir ma aha ama nin kastoo cusub maartay ma aha nin mucjizo la soo degayo ninkii xajaaj ibn yuusuf wuxuu yidhi وإن كنت لأخير زمان لآتي ما لم يأتي به الأوائل haddii aniga aan ahaynin hadda maaragtay idinku soo maaragtay biiray ama ninkaa cusub waxaan la imaan doonaa mucjizooyin aan la imaanin kuwii hore markaasaa wiil yaraa yidhi xuruufta maaragtay carabiga 28 waa xuruuf rijaay hal sagaalaad kusoo daro runtii raggaaga intaasay keeneen adiga bal wax cusub aan kaa qaadno dadkii cusub maxay keeneen lagu soo biiriyey qurbaha ka wada yimid kulli ragga maanta halkan soo gaarsiiyey waa raggii kusoo jabay madaafiicda kusoo adkaystay dhibaatada wadanka iyadoo lagaga cararay iyaga maaragtay ayaga u dhabar adeegay kusoo shaqeeyey wax waliba nolol iyo geeri u huray naf iyo maal maartay geliyey ragga ayaa maanta daanan jirin ragga hadda iska cusub oo laafiyoonayay yimid meelay adduunyo wax laga soo maray baan warweyn usoo inta taagaya keliya un kursiga waxii lasoo marayba u muuqan raggaas oo ragga ay ka sahlan tahay laakiin ragga gobonnimo ninkii usoo dhintay aa difaaca ma garatay waa gartay waay si kooban waxaan rabaa inaan cabdirashiid khaliifiyana u gudbo laakiin dowladda hadda joogta waxaad ku ammaanaysa ma jirtaa oo madaxweynuhu hogaanka u yahay waxaad ku dhaliilaysana ma jirtaa dowladda hadda jirto wax waa qabatay oo waxay qabatay waxa waaye maanta haykalkii qarannimo ee Soomaaliyeed annaga nagama dumin weli waa taagan yahay wixii khaldanna iyada in lagu dhex saxo dadka wax dooranaya ayay ku xiran tahay annaga nama khasbi karo madaxweyne xasan sheekh ilaa xoog igu doortana ma dhihi karo Umar Cabdirashiidna nama dhihi karo ilaa xoog ra'iisul wasaare igaga dhiga Jawaarinna ma dhihi karo ilaa gudoomiye baarlamaan aniga khasab igu celiya hadba waxay ku xiran tahay damiirka dadka wax dooranayo hadday ayaga Soomaalinimadu ay la weyn tahay hadday qanaaco ay ku qabaan dadka ayaga ay dooranayaan inay yihiin dad ummadani wax tari kara amaanadooda dhowri kara cadaalad maartay ayaga ku maamuli kara ayay jirtaa codkooda nin khasbaya ma jirto haddii nimay ka soo horeyso gacantane iigu shub iyo maartay iigu rid aniga asaga sida hadda daliilaha ay u dhacayaan laga helan asagay jirtaa waayo cabdirashiid khaliif adigu cilmi baaris baad samaysaa dadweynaha ayaad dhex gashaa mar dhoweyd waxaad soo qaaday arrinta ku saabsan dadka Soomaaliyeed maxay doonayaan bay kula tahay dadka Soomaaliyeed xilligan markaad eegto waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed horta waa dad runtii qiimo leh oo samir badan oo dowladaha waxay ka rabaan oo kooban yihiinba diyada adigu aad joogtid ama diyada kale dowladda waxyaabo badan baa looga bartay hadda dadku ciyaalkooda iyaga iskoolka ka baxsada waxbarashadii aan markaa ardayda ahayn aan ku heli jirnay iyadoo aan lacag la-aan ilaa jaamacadda lagu dhigin jiray lacag la-aanta hadda dadkii ayagaa ardayda carruurtooda ka bixiya caafimaadkii dowladda ay mas-uuliyadeeda qaadi jirtay shacabkiiba hadda maaragtay isdabaraha oo caafimaadkooda isdabaraha dowladdii loo shaqa tegi jiray dadku ay isha dowladda ay iska dhowri jireen iyo qofkii dowladda ushaqeeya la dul dhoobnaa dadka iyagaa noloshoodii raadsada oo isdabara dad marka runtii samir leh cir yar oo wax badan aan dowladda ka rabin baa horta dadka Soomaaliyeed weeye oo aad iyo aad aan xurmo iyo sharaf ugu hayo runtii marka dowladda wax yar baa laga rabay waxaa laga rabay in dadkan kalsoonidooda la hanto kalsoonidana waxaa lagu hantaa hufnaanta Soomaaliya waxay u baahan tahay dad madaxa oo hufan oo aan lacag taxad ahayn oo aan qabiilasyaal ahayn oo aan caqli xumayn oo ajaanibta aan daba ordahayn oo dadkan Soomaalidan runtii dee qaran jabay oo shaas dhacay oo dib isku dhacday oo 4 milyan iyo 900 kun oo qof oo Soomaaliyeed baa UN waxay tiri isbuucii soo dhaafay macnaha waxay cunaan ma haystaan iyo biyihii iyo cabitaankii oo intii ku yar culays baa saaran baa leeyahay 4 milyan iyo 900 kun oo qof waxaa khatar ku jira oo culays saaran 1 milyan baa xiriiq xood ku jira 1 milyan baa magaalo dalkan ku dhex firirsan oo IDP oo muwaadiniina inay codayaan rabay in carruurtooda cunto habeenkeeda la helay arabkooda ku wax ka cidi ay haysan dad marka noocaas dadka madaxda oo ah waxaa la rabay in si sharaf leh oo gobonnimo oo khiyaarnimo loogu khidmeeyo oo la tuso in dad oo macnaha warac ah sida waadada ay dhahaan oo xoolahooda aan ka xadahayn aan ka cunahayn aan cid kale u ogolaanayn dad lacag ka xadid hada qof kale inuu xad u ogolaato isku mid waayo Soomaalidu waan u jeedaa ma ku cafiyeyso siyaasiyiinta hadda joogta si kala hadda u dhigo
igana raali lahaada dhegeystayaasha hadday dhibsadaan waxaa u muuqda maaragtay haddii macnaha waxaan dhihi karaa nin dhalinyara oo guurdoona gabar qurux badan baa meeshaan uga muuqda. meeshaan gabar qurux badan ma joogto. Soomaaliya xukunkeeda gabar qurux badan nin oo gabar qurux badan raadinaya camal oo u guursado camal bay u farabaxsanayaan, u malabsanayaanoo runtii macnaha dee indhuhu banaanka u keenayaan. meeshaan hooyadeeno qaawan baa taagan. Soomaaliya waa waalidkeen, hooyadii dhulka hooye wey waa qaawan tahay, bar in loo geliyo ubaahan tahay. marka waa kaafiya kala dheeri. ninkan waxaa laga rabaa inuu dhexda xirto ummadan macnaha u dhabarjabo si wax uga dhigi lahaa. waxaana moodaa in shaqo iyo title iyo magac iyo madaxweynenimo iyo lacag iyo sumcad iyo waxaas dhan meesha ma yaalaan. marka waxa dadku rabaan iyo waxa dalka looga baahan yahay iyo waxa siyaasiyiinta badankoodu ay maaragtay la malabsanhayaan oo la indhacadeynayaan wax isla ma ahan. maxamed cali kalaay maxaa ku dari lahayd? runtii arrin oo su-aal oo dalxa uu ka leexdaan rabayna waxay ka tilmaamo 6dii qodob madaxweynaha xasan sheekh uu ku dhawaaqay waxaan dhihi karaa waxba kahergelin. sababtaa isagaaba markii ugu horreysay wuxuu yidhi nabadgelyo 3 jeer ku celiyay. nabadgelyadii 4 sano ilaa hadda heerkii la rabay ma gaarin ama waxba lagama falana dhihi karaa. isagaana qiray 6dii qodob inaysan buuxsamin oo wuxuu yidhi qabyo ninkeeda dhamaystira inay wixii qabiyihiin asagaa sheegay. laakiin maxay qabatay dawladda haddii la yidhaahdo wax badan ayaa soo baxayo oo ah jenaraalo badan inay magacawday, ciidan badan ay samaysay, safaarada badan oo aan loo sinnayn inay samaysay, shaqaalo badan oo mishaarkooda 1 sano sugaya ay samaysay. intaas ayaa mataqaanaa ay qabataan dhihi lahaa dawladda. ka waran dawladda sidoo kale waan la xiriirnay mas-uuliyiinta ay isku dhow yihiin madaxweynaha si ay uga qayb galaan dooda. hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay maaragtay goosteen inay ka baxaan oo aysan ka qayb gelin dooda. haddii laakiin dawladda iyo hadalka madaxweynaha aan qiyaasno, isagu waxyaabaha ugu waaweyn ee dawladdu ku guulaysatay markuu ka hadlayo wuxuu soo qaataa hirgelinta nidaamka federaalka, dhismaha maamul goboleedyada, al-shabaab in magaalooyin laga saaray, la wiiqay, isla markaana xiriirkii diblomaasiyadeeda beesha caalamka aada loo kordhiyey. haddii isagu dooda ka qaybgeli lahaana waxaan aaminsanahay inuu qodobo kale sheegi lahaa. maxay kula tahay? runtii aniga laftigeeda kama dheeri inta uu sheegi lahaa, laakiin bulshadii Soomaaliyeed oo madaxweynaha u ahaa muxuu u qabtay waay sida hadda walaalka Cabdirashiid uu sheegay. biyaha ayaga mataqaanaa maalgashado, ayaga warshado samaystay, ayaga waxbarashada iska bixiya. dawladda mas-uuliyadda laga ribay ahayd inay ummadda ay midayso, dadkan ay la dagaalamayso ay sifayso, xuduudka ay soo xirto. arrimaha dibadda waxaan ka qaban inay safiiro la magacaabay ama safiiro yimid oo xalaalo ku xareysan maaha. maxay qabteen 30 safiir oo hadda xalaalo fadhiyo safarka bayna geliyaan. ciidamadan faraha badan oo ama Soomaali kontonku ku gaarayo maalinba tuulay galaan waa ka soo baxaan. markay ka baxaana dadkii ay la joogeen baa la laayaa. marka wax qabad oo hadda muuqdo oo Soomaalida ay ku raaxaysatay lama hayo. waayo maxamed cumar dalxa arrintaas hartay inaad ka jawaabto. wallahi horta anaga waxaan ka hadlaynaa waa dawlad, qof ma aha. madaxweynaha wuxuu dawlad ku yahay dalka, dadka iyo maanta inta isaga la qabata hawsha isaga uu madax uu ka yahay oo hay-adaha dastuuriga ugu horeeyaan. aniga waxaan qabaa hay-ad in loo xisaabtamo oo la yidhaahdo xukuumaddu maxay qabatay, baarlamaan muxuu qabtay, garsoorka muxuu qabtay, madaxtooyada maxay qabatay. halkaasi meel waa ka geli karnaa, laakiin qofka anaga isaga inaan taarget garaysto horta ma rabo. maxaa yeele dawladda anba qeyb baan ka ahay. dawladdu waxna way qabatay, waxna waa u dhiman yihiin. dawladdu waa gaabisay waa la dhihi karaa, laakiin waxba ma qabanin. waxay lamid tahay ninkii geedka eegay uu markaa oo meelna qodxa geedaha kaga yaalan, meelna uu maartay ubaxa uu guudsaran yahay. ubaxii keliya maartay intii asaga uu tilmaami lahaa uu maartay intuu ka leexdo haddana qodxaha keliya maartay yiraahdo geedkani qodxa badana oo aan ubaxiiba u jeedin oo maartay tarashawka fil wurudi wa ta'ma an tara fawqa hanada iklilan dio ili abulmadi uu lahaa inaan noqdo ma rabo. anaga geedka qodxana waa leeyahay, ubaxna waa ku yaalaa. waaye waad ku dheeraatay maxamed cumar dalxa. si kooban ugu jawaab maxamed cali kalaay, kabacdina cabdirashiid khalifaan siinaya. maxamed cali kalaay marka saaxiibkayga waxaan leeyahay maanta xamar annaga waxaan qabnaa. shalayna waxaan joogay ayadoo wadada Maka Mukarrama oo aanan la mari karin oo gaariga kumbareera ama kul yaasiin ama kunkaada lagu marayo. maantana wadooyinka xamar mid aanan gabadh Soomaaliyeed gaari ku kaxaysanaynin, quruxdeeda iyo nolosheeda magaaladaasi iyo nabadeeda iyo bilicdeeda ilaahay in lagu xamdiyo ayay naga mudan tahay. maanta ma jirto. xamarna maalin baa waxaa la dhihi jiray bu'ratul mashaakil fi Soomaal.
xudunta Soomaaliya mushkilada hooyadeeda aabaheed waa xamar maanta madfaci ma jiro dayaankii ma jiro waxa dhacay waxaan la qabnaa ummadaha kale maanta maamul goboleedyo baydhawaan maanta laygu soo doortay habeen sabtan magaalada dhexdeeda ayaan dhex wareegayay alxamdulillah muddo ka horna waxay ahayd magaalo aanan tegi karin waxaan kaga soo cararnay ayadoo dhammaan nagala wareegay xataa dacadkii annaga aan lahayn inaan kala soo baxsan aan awoodi weyno waa ilaahay mahadi beledweynaha maanta ayaa shaqaynaysa oo ayada maanta iyo jawhar ayaan 9 bilood soo joogay oo aniga xaalkeeda ilaahay u ogay oo kaliya saabuuni aan la dhaafi karin maantana gaariga xamar ka baxo beledweyne uu gelaya waayi maxamed cumar dalxa haddii arrintaasi wax yar aan soo gala intuusan maxamed cali kale ay kuu jawaabin adiga magaalooyin fara badan waxaa jira al-shabaab laga saaray laakiin aan isku socon karin baabuurka xamar ka tega toos uma tegayo beledweyne iyo buulo burta iskuma gudbi karaan magaalooyin fara badan saas oo isu gudbi karin ayaa jira laakiin waxaan rabaa inaan siiyo maxamed cali kale ay si kooban si uu kugu jawaabo kabacdina cabdirashiid khaliif aan u tegaya barso dalxa horta waa shaaxirkayga qaaliga waxaan rabaa tusaalaha uu soo qaatay oo yiri caasimada Soomaaliya laysma socon jirin qad cagaaran baa ku jiray haddana meel walba waa la dhisay arrintan ka hadlaynay muqdisho kaliya maaha shaaxirkay degmada uu ku dhashay oo afgooye tuuladeeda inta baabuur gacantiisa uu ku soo wato ma tegi karaa baabuur bay dhaban ka baxay xamar ma tegi karaa joogi karin maantana waa furaaxaysanooysaa anigana waa kula joogi jaamacadda maalintan furayn anaa furay maantana jaamacadaad ka dhigoysaa dhibdhaba qabtid taasna ilaahay ku maaday ilaahay baan ku maadanaa laakiin xukuumadda iyo ma qaban imana waxba iguma siin marka codkayga aan dhamaystaa haalle ah macnihi waxaan ka wadaa caasimada keliya maaha caasimada Soomaaliya oo dhanna ma wada joogto sida aan sheegnay maamul goboleedyaa la dhisay madax kala la sameeyey mid walba xil gaara saaran yahay annaga waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya oo dhan from gees ilaa ka gees nabadgelyadeeda ma la sugay waxqabadkii ma loo sameeyey horumar ma gaaray jiran ma la sameeyey arrintan ka hadlaynay madani ahayd laakiin caasimada waa kii gaara oo hadda naftirkeeda sidii baarlamaanka oo ahaa inuu dhameeyo ahayd in maqaam gooniya loo sameeyo kii lama gaarin caasimadii baa hadda waxaa laga yaabaa haddii sharci la helo in caasimad kale la sameeyo marka barnaamijkan ka hadlayna waxa waaye xukuumadda adiga aad baarlamaankeeda tahay oo dawladda hadda dhisneed 4 sano oo lasoo dhaafay ma buuxisay kaalintii looga baahnaa Soomaali midaynteeda jidadka isku furidooda ciidamadan faraha badan oo Soomaalidu la sameeyey ma u diyaarsan yihiin inay ciidamada ajnabiga kala wareegaan horta pointiga aan ka hadlayna kan waaye waayahay dalxa si kooban ugu jawaab intaas yar ma ka jawaaba haye ku dhaq waxa waaye ninka abi tamaam la dhihi jiray shaacirka ayaa wuxuu yiri mata yablugu albunyan yawman tamamahu wixii adiga aad dhisaysay goormay dhamaystirmayaan idaa anta tabni wa ghayruka yahdimu adigana haddaad dhisaysid khayrkaana duminayo waxaan u malaynayaa dawladdu dadka ee hortaagan maanta waa Soomaaliya dadka jidgooyada iyo magaalooyinka kale xiran ee maalin walba lagula dagaalamayana waa Soomaali ma aha maanta ciidan soo duulay oo Israa'iil ama maartay ama wadamo kale nooga yimid Afrika ama Asia ama Europa ama America dadka Soomaalida dadkii ay la dhasheen haddii anaga aan ku soo leexin waa anaga maxaan dadkeeni anaga dalkeeni inaan wada dhisan oo dawladnimadeeni aan wada taagno ugu guulaysan weyne xasan sheekh madaxweyne waaye wuxuu leeyahay qodobo loogu talagalay oo waajibaadkiisa ah ra'iisul wasaare baarlamaan sidaasi kulli waxa laakiin dawladnimadu ma aha inta kaliya kuraasta ku fadhido dawladnimo anaga gacanteena aan ku burburinay oo shacbi saan wadanahay shacbiga Soomaaliyeed cadaalad baa maanta nin walba afka uu ku dhufanaya aniga kula hadlay nus baan ay adigana waa dhantahay weli inaad ku doodaysid aqoonyahankeennii aad tahay culimaa u diinkeenii baa tahay muxuu dalxa oo 9 bilood ku dhashay oo aqoonyahan adigoo kale professor labadiin aad wadatiin oo adigana jaamacad joogta aniga jaamacad wax ka dhigayo adigana aad kaamil ku noqotay aniga aan nus ku noqday kuleel kuguma hayso dabuu kuguma hayo aniga cadaaladda marka adiga aad kuraas maanta ee shalay baydhabo lagu qaatay nin haddii adiga aad xusuusatid aniga waxay soo xasuusinaysaa inaan anigoo dhanba nus aan ahay oo aanan soomaalinimadayda aan bar ka ahay way dalxa way qodobkaas si fiican baad uga hadashay dalxa kursi le uu qayliyo dawladnimo laguma gaari karo waxaan siinayaa dooda cabdirashiid khaliif ayaan siinayaa hadalka marka cabdirashiid maxaa kaaga baxay dooda dhex martay maxamed cali kala iyo professor dalxa xalku muxuu yahay horta waa mahadsan yahay xildhibaanku siyaasadda arrimaha dibadda ee dal sida Soomaaliya kale waxaa muraayad u ah midda arrimaha gudaha haddii arrimaha gudaha ay kala daadsan tahay oo daasmada baxaysa madaxweynuhu wuxuu yiri maamul goboleedyaan dhisnay oo maaragtay federalismkii aan dalkii ku baahinay haddana maamul goboleedyadii intii waddanka la isugu geeyay waxaa laga hadlaya asaga meesha sidii looga saari lahaa marka haddii dalkan uu isku hagaagsanaan lahaa
arrintu ma noqoteen ninkaas meesha laga bixiyo arrintu ma noqoteen oo wixii la sameynayay xataa waxaas isaga kusoo jeestay ama dad isaga kusoo jeeda ay kulminayaan bay isku bedeshay marka siyaasadda arrimaha dibadda oo lixdii qodob oo madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay sheegteen ay ku jirtay inuu isu lix qodob sheegaan maba ahayn waxay ahayd in xukuumadda iyo wasaaraha u daayay imaan doonta isaga kala hormaray lix qodob waxaa kamid ah inuu arrimaha siyaasadda dibadda inuu wanaajiyo marka runtii middan uu ka hadlay dalxa uu dhahay maaragtay wax badanna waa qabsoomeen wax badanna waa qabyo uu dhahayo waa run waxaan badan oo qabsoomeen ilaa cabdullaahi yuusuf iyo ka hor iyo cabdiqaasim iyo cali mahadiyo kasoo bilaabatay cabdullaahi yuusuf madaxtooyey hadda sheekh shariif iyo xasan cabdullaahi yuusuf baa beec tiray marka wax soo socday weye lakin nimankaan marka la dhaliilahayo xukuumaddan iyo madaxweynahooda iyo baarlamaanka iyo waxaan marka la dhaliilahayo dhaliishu waxay ka imaanaysaa waxay qaban kareen haddii ninkuu rabay inuu de guriga isku dhexda waka dhiso halkaas laga filayo qorshuhuna ahaa uu markii dambe la shiri yimaado aasaaskii baan taagay shub baan ciidda hoostiisa geliyay waxbaa qabtay guri aan shub hoose u qodnayn dee waxba lagama dhisi karo laakiin qorshuhu maahan shub baan dhisay maahana waxaa lagaa sugaya inaan saddex dabaq taagtid tusaale ahaan dawladdan kumaalgaarki waa laga saaray kumaalgeedka bay nagu celiyeen hadda dawladda adduun maraykankii iyo EUD iyo meel baa la geeyo kumaalgaar ma idin baa la yiri dawlad sharaf laatiin horey u socda hadda iyagoo aan sharciyad haysan bay dalkii maamulayaan dhex taagan yihiin waxay leeyihin aan loo qasboonaysiiyo marka la eedeynayo la haaraamayo culeysyada taagan iyo shabaabka iyo dagaalka iyo dhaqaale darrada iyo qowda maqasiyo waxaana u qaban ajaanibta waxaas waa lagu garaabi lahaa laakiin dadkii shacabkooda ma la kasbaday hufnaantu iyo xatooyada xoolaha dadweyne aan laxadahayn xaggee maraysa ma fiican tahay meeshii lagaa filayo ma gaartay ciidanka rabay inaad dhisid ma dhistay qof waxyaabahaas baa la fiirina laakiin wixii kaloo culays oo structural ah oo markii hore meesha daadsanaa oo sidii miyana u daadsanaa waa laga garaabaa waa laga ishaa laga laaban intii laga laaban karo laakiin wixii laga filahayay ma gaareen meeshii loo socday dadka u rareen majid kaley gaarsiiyeen doorashadan tuugada ku salaysan iyo xoogga iyo qarabadaada iyo lacagta ku salaysan xukuumaddan iyo nimankan kuraasta raba waa ayadii reflection bay ku tahay ayagaa lagu fiirina waxaanay maamulahayaan waxaanay dejiyeen waxaanay ka dhex kalluumaysanayaan waxaanay rabaan inay kursiga ku gaaraan waa lagu qiimeynaa waxaan kusoo gabagabeynaa waxaan rakeenayaa soo jeedinayaa dawladdan tan ku xigta horta ciidanka amisom madaxtooyada in laga saaro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska baarlamaanka iyo xafiiska maxkamadda sare muqdisho ilaha ugu muhiimsan waa in ciidan soomaaliyeed oo maamulo la helaa ciidan soomaaliyeed inay madaxtooyada inay waardiyeeyaan waa madaxweynaha ka dambeeya haddii isagu soo noqdo iyo haddii nin kala yimaado waa inaan wiil ugandhaysa usoo waardiyen wiil soomaaliya u imaansadaa way aad baad umahadsantahay maxamed cali kalaay aan kusiiya hadalka ugu dambeeyey runtii cabdirashiidka ma fogi waxaa loo baahan yahay isbedel waxyaabaha ugu muhiimsan oo xisaabtan la-aanta keligana waxaan dhihi karaa aqoon dari oo bulshada iyada ay u badan yihiin oo xukuumadda xataa qaabkay u dhisan tahay say u kala qaysanto cid ma xisaabtamaysa lahayn dadkiibaa waxaad moodaa in qabiil iyo maskaxda ay ku jirto oo hadda arrintan aan ka hadlayno ah isbedelaa loo baahan yahay dad bayba dhibaysaa oo le maxaa isbedelka kaleo loo baahan yahay marka waxaan dhihi lahaa isbedel waa loo baahan yahay dawladdan hadda waktigeedu dhamaaday midda kale oo dhismi doonto waxaan rajaynaynaa in la helo dad soomaali u naxayo daacad ah aan dantooda gaarka aan fiirinayn danta guud markay yidhahdaa midda gaarka aan la helaa anigu marka waxaan dhihi lahaa isbedel buuxa ayaa loo baahanya oo dhinac walba ah waaya noo soo gabagabay professor maxamed cumar dalxa isbedel ma ku dhibaya mise kuma dhibayo anaga isbedel khayr qabo haddii wala isbedelayo kudka guur qanja ka guur maaragtay isbedel maaha dad qof lagu bedelana ma noqonayo isbedel shaksi lagu bedelana wax soo kordhin maayaan maamul iyo system fiican oo ummadda soomaaliyeed cadaalad siman alla kacab maaragtay dalkan daacad u ah ayaa hadduu isbedel imaanayo kaasaan ilaahay ka baryaynaa maahane xasan cali iigu bedel iyo cumar cabdi iigu bedel iyo caashe cibaade iigu bedel aniga isbedelkaygu maaha ilaahay horayna dadka soomaaliyeed ma yidhaahdaan ku khayr qabo noogu bedel kana dhaafsi unbaa la yidhaahdaa wax ka daran markay yimaadaana kii horaaba dhaamay haddana lasoo fadhiistaan marka aniga isbedelkaas oo kale waxaan ka leeyahay ilaahaan ka magan galnay ilaahu haddaad naga bedelaysid wax khayr qabo noogu bedel baan taaganahay wixii khayr qabana ilaahu noo reeb reerkana ninkii wax taraya ilaahu adaa yaqaan
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. waxaan u mahad celinayaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya, iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.